wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Soomaaliland oo weheliyay suduwaha wasaaraddaasi ee gobolka Saaxil ayaa maanta kormeer ku soo maray xafiiska guud ee hay'adda wadaniga ah ee UFENCO oo wasiirku kormeer ku soo sameeyay qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay hay'addan wadaniga ah oo biriyihii ugu dambeysay ka shaqeynaysay dhinaca dhiirigelinta iyo kor u qaadista dhalinyarada kala duwan taasoo baraysay xirfadaha farsamada gacanta ee lagu shaqo tago Cabdiqaadir Ahmed Aadan oo isoo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda wadaniga ah ee UFENCO ayaa warbixin halkaasi wasiirka ka siiyay ku saabsan hay'addan iyo waxyaabihii ay ka shaqeynaysay sanadadii u dambeeyay mudane wasiir haddii aan ka warbixiyo hay'adda wadaniga UFENCO waxa la aasaasay 2001 waxay jirtaa 18 sanadood imika waa madal u furan dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland ka gaar ahaan gobolka Saaxil waxaan xafiis ku leenahay Burco Hargeysa iyo Berbera xafiiska guudna wuxuu ku yaalaa gobolka Saaxil magaalada madaxiisa Berbera UFENCO ururka hay'adda wadaniga UFENCO intii ay jirtay waxa ka soo shaqeeyay dhalinyaro fara badan oo ka baxay qaar ay wasiir yihiin qaar ay meelo kala maamulaan mudane wasiir intii ay UFENCO jirtay waxa la sameeyay iskuulkaas oo lagu baranayo xirfadda gacanta waxa ka baxay ilaa 600 oo dhalinyar ah imika waxa dhigta 215 arday 40 ay yihiin electricity cooking cunto karintuna ay yihiin 30 computerkuna ay yihiin 50 birlaabkuna ay yihiin 25 arday ganacsigana waxa dhigta 25 arday waxa jira 30 arday oo kamid ah oo kalluumaysiga la baray iyadoo la maalgelin doono loona furi doono goobo ganacsiga ardayda aan ku sheegay 600 qalin jabiyay iyo in time ka dhiganaysa waxaan u sameeynaa in aan geyno goobta shaqada qofkii xirfadii baa la barayaa goobta shaqada la geenaya isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Saaxil Shaafici Jaamac Aadan oo wasiirka ka hor halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay booqashadan wasiirku ku yimi xaruntani iyo waxyaabaha ay qabato dhalinyarada joogta ay aqoon ka kororsadaan aqoon xirfadeed aqoon shaqo imika waxa ku jira 215 arday baa ku jira halkan UFENCO oo qaar xirfad iyo lacag bal isu raacinayo waana jaamacad ayay u dhigataa xirfadeed oo dhalinyarada gobolka Saaxil ay ka soo baxdo wixii laga baro ay ka shaqo tagaan gobolka intiisa kale wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo isna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa u mahadnaqay hay'adda wadaniga ah ee UFENCO iyo dadaalada ay ka qaadato dhinaca shaqo abuurka iyo dhiirigelinta dhalinyarada gobolka Saaxil iyo guud ahaan dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland farsamooyinkan qof waliba uu ku shaqeeyay waan xuba kuwii ku shaqeeyay lahayn inay yihiin kuwana dawaba la lacagaynaya oo baday geliyaan aad barnaamijyada maslaxadu ku madnaqaya siyaasadda waddankeena waxa weeyaan inuu xirfadaha baro iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasadiisa iyo taageerno ku shaqeynayna dhalinyarada inuu baro aqoon ay ku shaqeeyaan aad marka waxa uu tahay example aad qaali u ah UFENCO xitaa qaybaha ay barayso waa marketka yaala uma baahnaa ninka farsamada bartaa inuu hadhowto wax doono ama suuqa galo ama halkiisa loogu imanaya marka calling system ka qaatay Berbera ay xeeb tahay Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera